بسم الله الرحمن الرحيم aad baad mahadsantihiin waan maqalnay warka uu sheegay wasiir Sacad Cali Shire oo uu leeyahay waxa noo socda anaga iyo Puntland wada hadallo warkaasi waa war aan waxba ka jirin waa war siyaasi waa warkii uu horay madaxweyne Muuse Biixi u lahaa madaxweyne Cabdiweli anaga heshiis iyo qodob baan ku heshiinay waxay ka mid tahay waxyaalaha lugooyada ah ee reer Soomaaliland loo sheegayo khiyaaliga ah ee ummadda laga dhacdhicinay awligeed runta loo sheegin qodobada uu akhriyay waxay ka mid ahaayeen qodobadii intaan aysan markii dalka soo weerareen tukarraq qodobo ayuu inka soo jeediyeen ayuu hadda wuxuu ka dhigayaa qodobo cusub oo maaragtay muxuu ahaa ama wada hadalladu ku socdaan ama ay Puntland aqbashay waxaasi wax jira ma aha su'aashiisa aan rabo inaan weydiiyo wasiir Sacad Cali Shire waxa weeye xagee Puntland kula heshiinaysaa wasiirka ma laascaan uu leeyahay ma waxay kula heshiinaysaa Puntland Garowe iyo laascaan dhexdooda waxaan u sheegnay shacabka Soomaaliyeed horeyna ugu sheegnay shacabka Somaliland laascaan iyo gobolka Sool waa la xoreynaya waa dhul Puntland waa dhul dastuuriya shacabkooda iyo dadkooda waa la xoreynaya haddii in waqti in muddo ay Somaliland ay dhex socotay macnaheedu ma inay leedahay haddii iska dhaadhiciyeen xuduud baad xiran ka dhaan xagee ku taala xuduud yaas xuduud sameeyay ma laascaan xuduud Hargeysa u noqonaysa ma madaxweyne Muuse Biixi baa laascaan la siinaya maxaa lagu wada hadlayaa bal su'aasha aan weydiinay waxa weeye wasiirka maxaa lagu wada hadlayaa laascaan leeyahay miyaa leedahay mal Garowe iyo laascaan dhexdooda heshiis kula galbaad leedahay bal shacabka Soomaaliyeed waxaan ku weydiinaynaa bal maqashi waxaad leedahay aan kugu heshiin in Somaliland Puntland ma haysato duulaan kuma aha mid doonayso dad Soomaaliyeed weeye nabad bay la doonaysaa barwaaqo la doonaysaa baraaray la doonaysaa laakiin inta dool la soo duulo oo qoryo la soo qaato shacabka laascaan la caburiyo dhowr tiknika lagu wararaceeyo muxuu ahaa gobolka Sool dhexdiisa in la yiraahdo Ingiriiska baa noo soo sheegay meeshaan waxa weeye xuduud bay ahaan jirtay waa rawaayadaha lagu wado weeye shacabka Somaliland hawaan toobaan shacabka Somaliland hana fiyo baadan waalidan madaxdoodu sheegayso ee lugooyada ah ka waanto runtan ha ogaada shacabka Puntland waxay u sheegaysaa dawladdu gobolka Sool waa Puntland dadkiisu waa Puntland laascaan waa Puntland waa laascaan gobolka Sool waa la xoreynaya shacab iyo dal Puntland ay leedahay oo reer Soomaaliyeed u haysan doona ma jirto intaasna waxaan u sheegnaa shacabka Soomaaliyeed shacabka Puntland hana u diyaar garoobaan garab istaaga qarannimadooda iyo dawladnimadooda iyo sharaftooda iyo ciidankooda mujaahidiinta ee dalkooda difaacaya waana mahadsantihiin